habeenkaas wax walba way hurdeen. Shirkadu waaweyn way xirmeen, internetkuna wuu aamusnaa. 15kii 2020 saacadu waa 8 fiidnimo bariga dhexe. hal mar waxay dunida ku waabariysatay way aragtay wax aysan weligeed filin. Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama iyo Jeff Bezos ee shirkadaha kuwa caalamka ugu caansan waxay soo walaadayeen hal mar hal fariin oo isku wada mid ah. waxayna ahayd sidaan: haddii aad ii soo dirto $1 oo Bitcoin ah, waxaan soo celinayaa iyadoo ah 2,000 haddii ay ku dhigaan coinka, ama ay dhahaan waxaan samaynayaa inaan coinka isqaata. waxaa jirto ay si fudud ay u raacaan. midaana waxay sababtay waatay saaxiibayaal soo dhawaada. waxaan ila wadaagi doonaa maanta dhaqdii adduunka galgashay kadib 10 jirkii adduunka ka yaabiyey kadib markii akoomada dadka ugu caasan adduunka uu isticmaalay kadibna uu qoray isku wada mid ah kaasoo ahayd: haddii aad $1 dhiibtaan waxaan idin soo celin doonaa. haddii aad ku cusub tahay channelka, hanaga hilmaamin subscribe-ta. haddii aad heri noola jeegtana waad ku mahadsan tahay. Graham Evan oo ahaa xilligaas 17 jir ma uusan jabsan kombiyuutarada, wuxuu jabsaday maskaxda. markii la eego wuxuu waxay mid ka mid ah shaqaalaha Twitterka, wuxuuna iska dhigay inuu yahay saaxiibkooda ama koox ka tirsan kooxda shaqaalaha. wuxuuna ku yiri: waan ahay shaqaalaha mid ka mid ah, waxaan arkay inay cilad jirto, anigoo in sheegaya cilada meesha ay ka jirto. waxaa jirtay ilaa ugu yaraan 8 shaqaale. wuxuu ku tijaabiyey isla hadalkaas, balse nasiib darro inta badan 5 shaqaale ka mid ah shirkadda waxay aamini waayeen hadalkiisa oo umay joogsan. balse nasiib darro qofkii lixaad waxaa dhacday inuu hadalkiisa qaato uuna noqdo filbaadka laga soo galay meeshii dhacdadii adduunka ka yaabisay. Graham oo markan ku nasiibsaday taankiisa lixaad wuxuu ku yiri: linkiga aan soo diri doono aad furto. linkiga waxay ahayd dadii linkiga wax dul saaran. waxaa jirtay inuu ahaa linkiga daboolka ama musbaarka qaaday. in ka mid ah Graham wuxuu rabay hawax oo kaliya, taasoo ahayd wuxuu rabay lacag degdeg ah taasoo u dhiganto $120,000 ayuuna ku helay 2 saacadood gudahood. taasina waxay ahayd qaladkiisii ugu weynay, sababtoo ah Bitcoin-ka waa la raadin karaa markii la eego. markii wuxuu sameeyey FBI-da iyo shirkadaha Mareykanka ma ay seexan. habeenka waxay ku mashquulsanaayeen iyo baaritaan ay ugu jireen sida ay wax u dhacaan.